yahay madaxweynaha ayraada madaxweynaha hore galmudug xaaf ayaa hadda ka soo degi raba diyaaraddaas idin muuqata saaxiibayaal muuqaalkan hala sheergareeyo xaaf oo musharax aqalka sare ah ayaa iminka ka soo degaya garoonka diyaaradaha magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda galmudug soo jeedaanba bulshada qaybadeeda kala duwan baa soo dhaweynaysa xildhibaano ka tirsan galmudug iyo sidoo kale wasiirro bal waxaanu sugaynaa musharax aqalka sare xaaf muuqaalkan hadduu soo gaaro sheergaree adigoo maadsan حاف يا هذا السعودي روا حاف يا هذا السعودي روا سوي دابا نا سودوين بلارن بالو سمينيا magaalada Dhuusamareeb xarunta galmudug ma hadii muuqaalkan uu soo gaaro ama live kan waxa ka codsanaya daawadaha qiimaha leh inaad muuqaalkan share gareyso oo asxaabtaada aad la wadaagto maanta Dhuusamareeb garoonkeeda loo kala harin bah iyo boqor iyo sidoo kale mas'uuliyiin baa xaaf ay soo dhaweynayaan xaaf muddo ayaa ugu dambeysay halkan maantana wuxuu yimid isagoo musharax ah isagoo markaasi doonaya in mid ka mid ah kuraasta aqalka sare uu tartamo calafkiisana uu cuno شنو بالك يا شنو هاي انا كويتيا وكنا فيديو هاجا كوكا صحافة يا هاد سو دقي بوقال كلا شير قريو اي قل بس سلامتك ما فيه شو فيه حقاوي عيال سلام بكرة يا مسؤولينتي فيديو صوت فيديو ما فيديو سلام بكرة يا دكتور سودوي مسؤولينتي سودوي وقال كلام شير كريو صاحب يال سلام يا زيد تبيض سخانة سنان مقالك خو
يا هذا كسودي سمريب أنا سويت دام بالشق بين الكردون أي سود وينيسة صاحب هذا قيمة يا خياله أنا لو ما كل عالم أنت سود وينتيسة برون كديار هذا هذا سمريب مدحونها ayaa goorow madaxweynaha hore galmudug ayaa goorow hal raba isagoo kulay ujeedka kan uu yimid uu sheegi doono كل سودوين أنا عادي هم بمجالات لو جسمي حاف أحمد دعالة قال حاف مدهوني ورجال مدوق أو يسوق هذا مشرح أقل كسرة أنا برشاد قيمة هذا كلا دونا يا سونا أكسن وسودوي سي ما دام كرسي كم إذا كراس أقل كسرة دوس مريب يقال برشاد ستهاي وهالكان طبعا ويمت وكرسي وبسامين تبادل كراس أقل كسرة ما دام يسقى يقيب جديد يكتر تمام وأنا وحوي بالكشاف وعنيس كرسي وسامين تيسلي هاي قردو أيور بين تلال دونا مقال كرسي شركة هديو كشجارو داونا يمك إذا حتى أيوة ساكنة بس ما أنت كده اللي عقبال الفولن لا مرة أفضل بيوصفوا ما قلت على محمود intaasoo dhan magaalada waxa laga dareemayaa saameynta dabcan kursigan uu tartamaya xaaf uu leeyahay iyo sidoo kaleeto imaatinka xaaf dadkaas aad u jeedaan maanta wuxuu yimaadeen halkan inay soo dhaweeyaan musharax xaaf ahna madaxweynihii hore ee galmudug بس على الباش كلك مناسبتها غالية
ومانتا يسوع صوب حي وسمرير وضن كمان تقولون نصي هذا كمان قالوا عرفوا كمان بس السجل يمد ومن صوت وينها يوم مدحويني هراء كالمدن مدايه كالمدن اللبان كي هراء تاريخ ذا وين كله هالكان ضد كان واحد حسوستان تبكي أي كوتشرين وقتي أنت من نبض أوصل سمين كهر أرين تاسي واحد ويان وأرين بنتي هالكان على الوقت سوكوبي كريم واحد شرف يقدرين يو مارتي وحيابا عن لقيمين كريم ما كان نوله إن الكسور دوينه أي ربار كدو سمريب مدحويني هراء مدايي galmudug labadii dhinac dib u heshiisiintii looga sameeyay taariikhda weyn ku leh amaalka gashaday dadkan runtii madaxweyne waxa weeye wax amaal la gashado bini'aadan baa ugu qiimo badan maasa intaan iyo in badan oo qalbiga sidaan oo kale tan ugu qalbiga waxay xasuusan yihiin taariikhdii halkan ka dhacday oo aad ku leedahay halkan sababta ugu ahayd ilaahay maartay awoodiisa ka sokay marka soo dhaweyntaas maanta loo sameeyay madaxweynaha waxaan rabnaa oo ay ka soo qayb galeen dhammaan qaybaha bulshada gabdhaha aqoon-yahanka odayaasha dhaqanka waxgaradka xildhibaanadii galmudug ee taariikhda dheer ku lahaa oo runtii u soo sacrifice gareeyey galmudug siday dhibaatada uga bixi lahayd oo wax badan u soo maro taariikha ku leh dhammaan lama soo koobi karo maanta runtii aad iyo aad baa loo faraxsan yahay waxaan rabnaa kelimadii annagoo maanta gunaanadka dambe tegi doonna in soo dhaweynta halkaan ah munaasabadda ku aadan odayaasha dhaqanka ee deegaanka oo macruufka ah taariikhda dheer ku leh mid ka midana ku soo dhaweyno oo si fiican loo wada yaqaano waa nabadoon cilmi yaxye Masha Allah ya helan kudi. Magasha sitak. Okay. codka kor u qaad السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا كساد ويننا وعن فلان هو كل جاي وماشي أجري كشيء كساد هو فلان هاي وعن فلان كساد هو لا وين كساد هو لا وين هاي اللي هو كساد هو من أين هو كساد هو هذا غير يا المجهول كورنا حتى كورنا وكل ويننا عاصمة الكاميرا وكل ويننا galmudug waan kugu soo dhaweynaynaa waxaan kugu soo dhaweynaynaa dhammaan inta aan magacaabay inta aanan magacaabina magacooda ama sheegin intaas waa kugu soo dhaweynaynaa waxaan ilaahay kaaga baryaynaa waxa aad u tiriyo wanaagga aad doonaysay ilaahayna kula kulmiyo aamiin soo dhaweynaa hadalkayga assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan filayaa insha Allah waxaan ku soo dhaweynayaa xildhibaan Mujahid Cabdiqadar oo kelimad ku oranaya halkan soo gaar xildhibaan soo gaar السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معنا أنا كان في سوريا والهويني هراء galmudug بداية وأنا أحمد علي عاص
soo dhaweyntiisa maanta waxaa ka soo qayb galay xildhibaanada galmudug oo aan u kala harin wasiiradii dhallinyaradii bacda isboortiska hooyooyinkii xaafadihii soo dhaweyntiisa waxaan u taagnay muddadan aad iyo aad aan sugaynay waxaan rabnaa inaan idhaahno markaan raba inaan idhaahdo musharax aqal sare waa yahay waana madaxweynahanagii hore waa ninkii isu keenay galmudug madaxweyne waxaan ku leenahay kusoo dhawaad baytumareeb afka dhallinyarada galmudug oo ku hadlaya kusoo dhawaad waan ku leenahay dhallinyarada galmudug si aad u jeedid maanta meelaha kala duwan oo dhammaan degmooyinka galmudug ka wada yimaadeen waxayna u yimaadeen soo dhaweyntaada inay garab taagan yihiin haddii ilaahay yidhaahdo wax kasta oo loo baahdan oo kala garab taagan yihiin xildhibaanada galmudug waxaan leenahay codkiina haddaad ugu hiilin weysaan dhallinyaraatiina matalaadaanna matalaydaan ma ahan midii aan idinka sugaynay أحمد عالي جلحف ونيك الكلية قلبه بقى ماتا كبير وحاربنا إنان عدكينا هلما وحاربنا إنان هلسينا عن إذي قلب تاقنين إنان لو قلب تاقتان مانتي أنا كعصق أنه حوالي إنان أحمد عالي جلحف عن كالله عدكي عن كغرب هذه أنا مدرستي مانتي لو تلوين أنا كنت لوين عندما عبد القادر ما شاء الله ما شاء الله بسم الله الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين مدحيني هوري قلب أنا مشرحة خلصرا مدنا أحمد جعالة قيلة حاف اللي معنا وضياشة الرياضة ويوينكا سراكيشة صحافة دمان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بعد السلام maanta farxad weyn oo tahay mar labaad Axmed Ducaale oo ahay madaxweynihii hore galmudug ahay madaxweynihii ka shaqeeyay inay galmudug ku timaado midoobaan walaaloobaan inaan mar kale maan ku midoowna caasimadda galmudug aad ugu faraxsanahay madaxweyne waxaan ku leenahay ku soo dhawow galmudug waxaan rajaynayaa inaad tahay madaxweyne mudan in loo abaal celiyo mudan wuxuu soo maro dhiba in looga abaal celiyo mudan inaan lala tartamin mudan in la garab istaaganataan aaminsannahay anoo afka xildhibaanada ku hadlana waxaan ku leeyahay madaxweyne soo dhawow insha allah bilaa tartanaan guulaysan doontaa caqabad alla caqabadda kaa hor timaadana waxaan rajaynaynaa insha allah si degan inay ugu madaxweyne ku soo dhawow maasanta ما شاء الله ما شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله marka hore wasiirada xildhibaanada hooyooyinka dhallinyarada rag iyo dumar ciidamada in allaala iyo intii meel nala joogta maanta iyo inta naga baqanba waxaan ku salaamayaa salaamta islaamka asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu salaan ka bacdi walaalayaal muusamareeb eeraboorkaan maanta taaganahay sidaan ma ahayn waagii hore gobol waa iyadoo ah aniga waa isku soo dhiibay waana gaaraan leeyahay gobol waa markaan leeyahay dawladama joogay macnaheedu rag badanoo joogay mujaahidiintii igamaha ayay waxay iga tahay markii biimitada muusamareebeed salaantii gabadha tarbuuska shacaba ay kaliso habeenka ay daadin jirtay maaha maanta gurigii $200 $300 ahaan jiray aniga $400 ba hadda liiga jiray waa horumarka iyo dhaqaalaha iyo mujtamaca isugu yimid oo caasimadda ay u noqotay baa taa keentay galmudugna markaan imaanaya 3 degmo yahay haddana waa 6 degmo iyo weliba 3 iyo wax kale intaas waxaan ku dadaalayay oo wax kasta dagaal uga haytay oo si kastoo la ii cadaadiyay aan diiday in ay sidaasii ahaato caasimaddu iyo inta u dhowra aad iyo aad baan maaragtay idinku mahadcelinayaa saad maanta ii soo dhaweyseen amaalkaygana waa ka heli doonaa waan malaynayaa haddii dadku ii amaalgudi waayo ciidda ii amaalgudaysa
إلهي waxaan ka rajaynayaa inaan ku guulaysano waxaan raadinayno iyo ayaan ilaahay ka rajaynayaa waxaan rabaa waan wada joognaa waana wada shaqayn doonaa hadda khudbo badan iyo wax badan inay jeediyo ma doonayo laakiin waxaan ilaahay ka rajaynayaa dhuusamareeb inay noqoto mid aad loogu soo wada higto oo maanta aad baan ugu magacayaa in badan baa jira laakiin dhibka badan allah ka badbaado allah ka badbaado in allaanaya intii maaragtay si uu dawaacan la maagana ilaahay ha u calliceliyo ilaahay maaragtay iimaanka ha kuso aad iyo aad baad mahadsan tihiin aad iyo aad maaragtay waxaan kaloo rabaa inaan dagaal baan ugu jiraa cadow badan baa jira ayadana waa u labisannahay wixii dhibaataha oo lagu soo socdan inaan iska dagano diyaar baan u nahay dhibaanada iyo dadka iyo inta carrada joogtana aad iyo aad baan maaragtay uga sugayaa amaalkaygii aad iyo aad badan mahadsantihiin asalaamu calaykum